naftiisa ay badbaadin karto haddii aysan badbaadin karinna dadka wax ma dhaanto therefore dadku dawlad aan wax u taraynin oo aan badbaadinaynin in isku haleeyaan oo loo hoosaasiyo oo laba dhagax dhexdooda la gasho oo shabaabku ninkii canshuur diida ama tala ka diida uu dhahaa waa murtad dawladana ninkii canshuur ka diida ama tala ka diida ay dhahdo waa shabaab meeshaas dadka in lagu haayo mas'uuliyad ma ahan waana qorshe xumo waana aragti xumo aniga sidaan qabo hagaag xuseen haddii aanu dib ugu noqono iyo magaalada muqdisho xuseen waxaa jooga dalka soomaaliya ciidamo qalaad oo loo keenay sida la sheegay waa say hadalka u dhigeen amniga qaranka amniga soomaaliya inay ilaaliyaan 22,000 oo African soldiers ayaa jooga in kale oo aan la xisaabinin oo faraha ka badatayna waa joogtaa magaalada muqdisho oo kaliya ma ka dhigi kari la yihiin abni oo ma xiri kari la yihiin dariiqada laga soo galo oo ciidamada Soomaaliya ma support gareyn la yihiin 13 sano kadib وما سنت عبد الحفيد ciidamada Afrikaanka ee loo yaqaano AMISOM codkaaga kor igu yara qaad Xuseen waa mahadsan ciidamada Afrikaanka oo AMISOM loo yaqaano mandate-kii ay ku yimaadeen 13 sano ka hor inkastoo isbadbedelayay aniga waxaan qabaa in intii ugu badnayd la gaaray oo ahayd haddii aan si fiican u fahanno in ay abuuraan dawladda Soomaaliya ay u abuuraan dhul iyo jawi ay hawsheeda ku qabsan karto oo macnaheedu ay tahay ay dawladnimada ku ballaarin karto oo ciidamadeeda ku dhisan karto nidaamkii kale oo dawliga ahaa oo maxkamadihii iyo waxyaabihii kale oo dawladda looga baahnaayo dhan ay ku abuuran karto anigu waxaan qabaa magaalooyinkii dalka ugu waaweynaa oo koonfurta iyo bartamaha dalka 10 sano la soo dhaafay waxaa lagu soo celiyay gacanta dawladda magaalooyinkaas iyo inta u dhaxaysa dawladda Soomaaliya tan kaliya maaha ayaa laga rabay in ay iyagu isballaariyaan oo dawladnimadooda ballaariyaan oo ka maarmasho ciidamo ajnabi ah la gaaro anigu ma qabo ciidamo ajnabi ah in ay shabaab ka adkaan karaan haddii maanta intii Afrikaan la bedelo ciidamada Mareykanka oo adduunyada ugu quwadda weyn in ay intay yimaadaan inay shabaab ka adkaan karaan shabaab waxaa ka adkaan kara dad Soomaaliyeed ciidan Soomaaliyeed waxaa shabaab la hadli kara oo la heshiin kara dad Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed marka anigu dadka qaba miihi AMISOM cilado laga sheego fara badan oo anigu aan kamid ahay dadka wax ka sheegay way jiraan laakiin shaqadii ugu muhiimsanayd oo ahayd inay abuuraan space ay dawladnimada Soomaaliya ku dhaqdhaqaaqdo way abuureen inaga ka faa'iideysan weynay oo meeshii ay geeyeen meel ka hooseysa mar walba ku soo celiya oo dhulal ay dhowr jeer noo qabteen annagu maaragtay dib looga soo noqdo marka يعني بلونيga xaggeenu soo jira xagga Soomaalidu soo jira ciidamadaasna anigu ma qabo hadda inay 22 iyo 22 iyo 23 midna bixi karaan sababtoo ah awoodii ciidamadeena iyo dawladnimadeena ayaa si daciifaysa baahidii loo qabay 2009 iyo 10 mid ku dhadhow ayaa hadda jirta mana u jeedo in mar dhow ka maarmi doono hagaag Xuseen waa ra'yigaaga weeye kalay nasiib darro dawladuna lama joogto waanu soo codsanay ayaga diiday inay ka soo qayb galaan isna difaaci waaye oo waxa jira noo sheegi kari waaye hase yeeshee waxaan jeclahay Cabdisalaam inaad dib kugu soo noqdo ciidamadan qalaad ee dalka iminka jooga inay tagaan baa la doonayaa baa la leeyahay wadanka ay ka baxaan Xuseen hadalkiisa hadal muhiim ah ayaa ku jiray oo ahaa inaan anagu isku tashano oo amnigeena iyo aayatiinkeena gacanta ku dhigno waa daruuri ma ku muuqataa in laga maarmi karo ciidamadan haddii kuweena la tayeeyo oo shacab iyo dawlad la isugu tago ciidamo Soomaaliyeed oo xoog leh in ay maaragtay ku guuleysan karaan amniga dalkeena ajnimada looga maarmi karo waa ii muuqataa laakiin waxaan isleeyahay waqti waa ka sokeeyay waxaa ii muuqda sida ay shaqaybada sheegeen ciidamada Soomaaliya waxaan isleeyahay ciidanka ugu geesisan ee bini aadan leeyahay baan leenahay anagu markii shakhsi la yiraahdo wiilka shabaabka ah ee aad aragtay geesigu ah waa Soomaali kan kale la dagaalamayana waa Soomaali
waxaan aaminsanahay leadership hogaana meesha ka maqan dee qof wixii hogaamiyey uun baa waxaan maqli jiray inkastoo dee hadda la dhihi karo hadalku dowladda ku socdaa haddii dee libaaxyada dawaca hogaamiso dawacay wada noqonaya ciidankii Soomaaliya oo dee aan wiilasha aad aragtay oo danaba hoose sida artay loo jeclaaday oo Mareykanka qolaan la sheekaysto waxay ugu dheen nafteena saan ugu aamino wiilashan aan dee basic training ka siinay wadamada Iraq iyo Afghanistan oo balaayiin dollar ku qarash gareynoo sanado tababaraynay kuma aamino wuxuu ku tusay tayaday dadnimada dee waa midaan anaad iga kood garaynaysa halkaas waxaan maleynaa taliye Cabdullaahi iyo Xuseen sidoo kale nabad sugidda way ka soo wada shaqeeyeen madaxu ka soo radna qaybo kale ka joogeen wiil la yiraahdo Alpha Group ama maartay ayaan lahayn gaashaan wax yara la siiyo quality-gan waxaan ku muujinayaa askarta Soomaalida dawlad hanata markii la waayay askartii la geeyay Turkiya kuwii la geeyay Kenya iyo kuwii meelaha kale markii la soo celiyay dee hal sano ka bacdi askariga wuxuu noqonayaa wax baaba'ay marka waxaa maqan ciddii ku shaqaysan horta taas waa mid ciidanka janabiga hawsha ay qabanayeen oo aad inay halboolayaasha oo meelaha muhiimka ah ilaaliyaan way ilaaliyaan ciidanka Soomaalida inay gacan siiyaan oo meeshii la raba geeyaan way geeyaan laakiin muhiimadu waxay tahay sidii dawladdan u timid malaha baahiba maba u baahanba in weerar la qaado ama meel uun la qabto Soomaalida garan taasina dee askariga hadda askariga dee AMISOM wuxuu aaminsan yahay wax la yiraahdo leave no one behind qofna gadaalaha uga soo tagino maadaama marnuu bixi rabto isku day inaad casual-kaadi dhimashadaada yarayso laakiin cabsilan aan ku xasuusiya shalay ama daraad midkood warka waxa ku jirtay TV-gan Universal ciidamada danab inay ka dagaalamayeen shabeellada hoose meelo kamid ah ayaga iyo ciidamada Jubbaland dawladii baa hawl gelinaysa weerar qaadayaan marka maxaad u leedahay dawladdu way iska fadhidaayo weerar qaadi mayso waa sax يعني horta de markaan kuleenahay dawladdu wax ma qabanayso macnaheedu ma ahan dawladdu lama arko kama wadno dawladdu way joogtaa wax way qabanaysaa laakiin de markii laga rabay inaad 100 dagaalkay ku jirtaa laakiin markaad 100 inaad qabato laga rabay markii ummadu isku ka hadlayso markii lagu jiifto ee aad tiraado de maartay koob shaaxan kariyay ayadoo de sab laga doonay cunto ma aadan sameyn Soomaalida garan dawladda Soomaaliya marka waxay ka gaabiyeen wixii la rabay iyo waxay qaban kareen iyo baahida meesha taali ka gaabiyeen ana marka waxaan leeyahay dadkana dhageysanayna fiirsanaya inay caawa naga fahmaan war qabiireen baan u nahay aqoonna waan u leenahay marka la yiraahdo amniga xogteedina waan haynaa maxaa shabaab dhiiri geliyay sanada ka hor dhiirida maanta ay saqabeen oo ah inay dekadii Soomaaliya canshuuraan oo hore u canshuuri jireen waxdii dawladdu wax ka qabanayso waa xamar baan ka hadlaynaa in fiyoweeyo maqlaysay maartay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir la yiraahdo waxaba keena al-shabaab in la yiraahdo wiilka fanaanka huwa al-shabaab intaas inay dhacdo marna ka dhaxgal laakiin idaacadaas aad sheegtay waxa ay baahisay ayada ka masuula dabcan anagu Universal ma xaqiijin karo wado faalo dabcan waan basheegaba VOA sheegtay Soomaalida garan waxa soo dhamaxaa suurta galiyoon hore u jiri jireen ayaan waxa suurta galiyay dawladihii hore waxay maqlayeen dadka waxay maqlayeen cabashada waxay isku dayeen isticmaalaan awoodda ay haystaan laakiin dawladda waxa ma leeyahay inaysan completely dhinacaas u jeedin oo danaheeda ba ahayn laga yaabaa in dadka la dhageysato danaheeda iyo horumarka dalka ka shaqeynayo oo kuwa adigu aad tilmaamaysan ahayn dabcan markaas way ku qasaartay lana waxba lama qaban Soomaalida garan al-shabaab maanta waxay awood u yeesheen inay gudaha magaalada Xamar u soo galaan inay dawladnimo u dhaqmaan waxaan leeyahay marka xagdii sidaan la ahaado hadalkayga hore ahay xagee loo aadaya xagee loo dhaqaaqay waxaan aaminsanahay meesha loo dhaqaaqay waxay tahay waxaad maqli doontaa al-shabaab maalin dhaqan lagu aragan ka maqalnay oo inay raali gelin ka dhiiban dad ay laayeen macna iguma fadhiisan aniga dadaan laayay raalina ahaadan lay laakiin waxay ku tusay dhaqan cusub al-shabaab oo dawladnimo ku dhaqmaya dawladda Soomaaliya oo muuqan de waada caawa kala saaxadana kala anaha dawladda inay nala hadasho oo istifaaco Soomaalida garan waxay isku difaaci laadahan waxay isleedahay de waxa ku hor yaala waxaad ka jawaabi karta maaha waxa ii muuqata marka al-shabaab qabsada dalkii dawladda Soomaaliya oo filadii ku aamusta adduunkii oo kalsoonida oo noo qabay iyo arartii noo qabay wixii uu nasiinayay gacmihiisa dib u ceshta ciidamada AMISOM oo rajo fiican u gashay inay 10 sano hadda ka bacdi joogi doonaan daayilifto dhaqaalaha ka soo gala ba meeshaas taala waana qasaaro halka cabshaan igu rakaadi mudane Cabdullaahi Sambulo shadan dib kugu soo noqdo waxa sheegtay dawladdaanu inay fashilantay oo maaragtay waxa reportkeeni ku jiray
wax ka duwan aad aaminsan jirin adiga xuseen labaduba laakiin waxaad moodaa inaad u dhigaysaan saddexdiinuba qaraxyadan inay shalay corteen oo dowladdan iminka joogta ay la corteen qaraxyada horey u dhacayeen in muddo bay dhacayeen haddaa rabti dib u noqo ilaa iyo 10 sano ama 11 sano ka hor hotel shaamo baa xasuusataa maamulkan iminka muusan jooginin qaraxyo kale ayaa dhacay kii ugu weynaa intay maamulkan hadda uu joogay ayaa dhacday soo bay ahayd adaa xilka hayo laga ku waayey marka maxaad u leedihiin dowladdan ayay qaraxu la bilood baa fashilmatay markaan ognahay qaraxyadu kuwa horey u jiray bayna ahaayeen horta qaraxyadu waa jireen waa run waana la socotaay oo dowlad kasta 4 sano markay gaarto waa la xisaabin jiray doorasho la qaban jiray iyadoo la eegayo dowladdaas wixii loo igmaday iyo meeshii laga rabay ma gaartay mase dib u dhac ayaa jira tii inta badanna waa la bedelaya annaga waaba jirta qaraxyadu waa jireen waa run laakiin haddii la rabo qaraxyadan inay sii socdaan dowladdii xasan sheekh maxamuud la dhaafi lahay meelay wax keeneen tii sheekh shariifna meelay wax keeneen the question is dowladdaanu xaggay markay waqtigooda dhammaato wax geyn doontaa ani waxaan qabaa marka dadkii hore dadka daraan u leh oo ka naxa oo ka warqaba oo dagaalka cadowgu ha soo qaado waxyeelana ha geystee ayaguna mid kale oo hajuuna oo falcelin ku hay ay ahayn kuwa hadda jooga waxay u muuqdaan kuwo dadka cabaadkooda iyo cabashadooda ku dhaxaysanaya oo runtii aniga aan dhihi karaba dadka hadda jooga koow waxay u kala baxaan dad inay lacag ku sameeyaan markaad fiiriso ka soo qabo shakhsiyaadka amniga ka shaqeeya wasiirka amniga waa ganacsade conflict of interest waa waliba security-ga sector-ka ka shaqeeya business oo airport ku leeyahay company security uu leeyahay belgis leeyahay uu leeyahay shidaalku ka ganacsada taliyaha nabad sugidda waa nin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka awood badan oo door weyn ku lahaa doorashadii madaxweynaha iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha lama canaantaan waaye taliyaha booliiska si muuqata ayuu wuxuu u yiri dad boqolaal oo meedkooda ha sheegin waliba kaamiradu joogta marka horta madaxda hadda laakiin sambulosh arrintaas booliiska sarkaalka booliiska ugu sarreeya marka uu hadalka ka sheegayay ex control afgooye ee duqa magaalada uu garab taagnaa waxa uu diidaya iyadoon tiro koob aysan weli dhicinin oo wixii ay markaa dhaceen baaritaan ciidamadii ay wadaan inaan laga hor dhicinin cadowgana aan loo sheeginin intaasoo kun oo qof oo boqolaal Soomaali inay baaba'day baaritaan sax la sameeyo eheladii dadka lala wadaago nidaamka adduunka u shaqeeyay muusan saas ahayn please don't cover up ninkaas commentigiisa iyo hadalkiisa hadaboolin sadar muuqda su'aal ka dhan meedka dadkaas waa muuqday waana la tiriyay asaga haduusan la socon dadka loo la socda jira hadii wax lagu daray ama wax laga dhimana gadaala laga sixi karay laakiin dareen xumo iyo inuusan muraad ka lahayn ay u muuqatay waxaan oo dhan bajaasjaas iyo simple inuu tahay dawladnimada Soomaaliyeedna ma ahan maamuus ma ahan kuraas lagu raaxisto ma ahan wax sheeka ah waa wax mas'uuliyada oo hadii aan wax la qabanaynin meesha in laga taga mudan waa gartay intaan Xuseen u gudbinin mudane Sambulosh xilliga adigu 6 bilood xukunka haysay siyaasadda dawladda haday amniga tahay mid kale haday tahayba waa taageeraysa markii xilka laga qaaday miyaad mucaarad noqotay dawladda ka soo horjeedo dhiiga daadanaya ku dhibaya markaasna waa dhibayay oo hadii hadda nimankaas aan isku faraxsanahay waa isla joogay maxaan ku maqli weynay waagaas oo dawladdu weedeeyay dawladda soo weedeynay waxa aniga markaas dawladda inaan eeday laga marabay nimanka nabaddiidka ahoon oo nabadgelyo darrada iyo qaska ka shaqeynaan rabaa in eeday ka shaqeeyo laakiin Fahad Yaasiin iyo wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska waxa ku eedeynaysaa inay yihiin lama canaantaan oo dawladda ay hoosta kaga jiraan oo business leeyihiin adigu markaas shaqada haysayna waxa diiday inaad dawladda ku eedeysid wixii falala oo ka dhacay marka ay samaysay marka adigu ma la jiifiyaan banaanba mas'uulka feeri barigaas amaanka ayaga ana mas'uulka ah oo shaqeynaya dadku u shaqeynaya ayagu magaciyaal meelaha taagtaagan ana danooda qabsada horta saas ugu ninka shaqeynayay oo istargalgalinayay oo ka dhacay oo ka degayay oo shaqahay oo maalin guuleysanayay maalin dib u dhac qabsanayay maalin laga guuleysanayay maalin horumar sameynaa anigoo ahaa inta kalena shaatigooda cadda iska raxaysanayay waa hagaag aad baa u mahadsan tahay daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka Efiya oo ah barnaamij cusub oo toddobaadle ah oo toddobaad walba mawduuca ugu muhiimsan aanu diiradda ku saarayno haatana waxaan jeclahay inaan u gudbo halkaas iyo caasimadda qaranka Soomaaliya Muqdisho oo Xuseen oo dooda la socday uu dhageysanayay
xuseen soo dhowow aada la socotaa waxa dalkii hooye ka jira maxaad isleedahay markaad eegtid wada shaqaynta ciidamada soomaaliyeed oo qalabka sida haddii ahaan lahayd qiimahooda kala duwan sidee bay iskula shaqayn karaan oo loo heli karaa inay wada shaqayn yeeshaan oo sirdoonka la xoojiyo oo la badiyo tayadooda iyo maxaa la yidhahdaa taakulayntoodaba si xogta dhabtaa dadku ay ugu keenaan ciidamada dhiigga shariifkaah oo daadanayana la joojiyo. waa mahadsan tahay. arrintan saddex waxay leedahay dhinac. dhinac waa dhinac farsamo, dhinacna waa dhinac sharciyad, dhinacna waa dhinac siyaasadeed. waa gartay. waxaa ugu horeysa horta ciidan qaran markii laga hadlayo in siyaasaadka lagu hagayo, in la dejiyo, la diyaariyo, heshiisna laga yahay dadka ay khusayso oo hawshaas isla wadoo dhan inay heshiis ka yihiin. dhinaca labaad waa in heshiiskaas iyo wixii la isla gartay in la sharciyeeyo oo ay noqoto wax aan gorgorton iyo qof ku xirnaan doonin, ay noqoto wax meel yaalla oo maaragtay laga shidaal qaato. qaybta saddexaadna waa qaybta farsamo oo ay qaabka ay wada shaqaynayaan iyo u baahan maaragtay heshiis kaleeto oo farsamo iyo sidoo kaleeto maaragtay tababaro iyo capacity buildings. marka waxaa aniga aan isleeyahay waxaa la gafay oo nasiib maaragtay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisu ay heshay in markii ay dhalatay in ay heshiis qaran amniga qaranka la isla helay oo abril 2017 isfaham guud qaabka amniga qaranka looga wada shaqaynayo hay-ado iyo siyaasiyiinba. nasiib darro arrintaas waa dhicisay noqotay, kadibna dee lama sharciyeynin oo hadda wax hay-adaha dalka iyo qaabkay u dhisan yihiin iyo dalku federaalka u qaatay hay-adihii shuruucdeedii lama lahaysiinin. de farsamadana de dadkii xirfadii lahaa iyo iyana meesha hadda ugama jeedno. marka saddexdaas waxyaabood oo aanan laisla fadhiisinin oo mid maqan yahay suuragal maaha in ay maaragtay sida dunidu ay ciidamadoodu iyadoonan la garanaynin qaabkay u wada shaqeeyaan oo maaragtay smooth ah inay iska shaqeeyaan. oo hadda maalin kasta aad maqasho 2 ciidan ayaa magaalada muqdisho aag isugu jirta. usbuuc walba aniga magaaladan deganahay, usbuuc walba shalay daraato midaa dhacday, usbuucii horeeto kuwa kalaa dhacay. maalinkii qaraxa oo weynaa oo maaragtay 28 December xaafadayda agtayda ciidan ayaa maalinkii oo dhan ku dirirayay. marka yani ma wada shaqayn karaan. kuwaas waa shakhsiyaad ayagu israadsanaya, ma ahan ciidan Soomaaliyeed oo ayagu iska soo horjeedo oo weeraraya ma ahsama. maya shakhsiyaad waa la noqonayaa, laakiin dhar ciidanayna wateen, hub ciidanay wateen, rasaas ciidanna waa ku dirirayeen. marka shakhsiyaad ma aha. laakiin hadalka saad u dhegeysan waxay tahay ciidan Soomaaliyeed oo iska soo horjeedo cadaawad ka dhaxayso isdagaalaya. annagu intaan ognahay sidaas inta badan xaqiiqad ku saabsan ma hayno, laakiin saas uma dhigin. raali noqo. haye u dhig adigu sax. isku dhacyaa ereyga aan isticmaalay waa isku dhacyo. cadow iskuma aha, waa isku dhacyo. isku dhacyadana waxaa keenaya saddexdaas dhinac oo aan soo sharxay. haddii aanan la fadhiisin waxaanan laga huraynin in ciidamadu ay mar walba isku dhacaan maadaama aysan jaranjarooyinkaasu aysan fadhin. ma aanan dhihin ciidanka dalka ayaa cadow isku ah marna. waa gartay. waa ku fahmay, waa ku mahadsan tahay. cabdisalaan, al-shabaab canshuur bay ka qaadayaan dadkii dekedda waxa kasoo degay ayay la socdaan. garoomo lagu ciyaarayay bay dadku leeyihiin ma tegi kartaan ama laga xirayaa. dowladdii dalkiiba dhex joogta, magaalada muqdisho ayagaa waardiyey, meel kaleba iska daa, intaasoo ciidan baa jooga. sidee ku dhacday wiil yaroo al-shabaab oo magaalada dhexdeeda jooga inuu ku yidhaahdo qof Soomaaliyeed canshuur bixi? waay loo soo dacweyn waaya? qofka waa la yaqaanay. daxfiidow
hooyada bakaaraha joogta yaan ganacsi weynaheeda yaanyo meel ku goobaysata ciyaalka agoonta haysta jawaabtaas way haysaa su-aasheeda weydiis jawaabteeda haysaa oo ah dowlad ma aragno sidaasay ku dhihi lahayd haddaad weydii lahayd maandhow dowlad ma aragnay ku dhihi lahayd shalay waxaa jirtay waad ogeed ciidanka nisa oo labisan oo magaalada gulfayo ordayo guri ku dhacayo wax soo qabanayo milatarigiyo wax raacdaysanayo dee shabaab is aruursan waayeen meelay isugu tagaan waayeen baa shala jiray inkastoo dee qaraxu jiray oo hawshu socotay haddana shabaabku waa la baacsanayay maalinba geeday ka baxayeen magaaladana sidii la rabo ayaa loogu weerarayo loogu tegay inkastoo wax badan qaldanaayeen dee wax ma wada saxnayn waan isla waafaqsanaa laakiin hooyada bakaaraha joogta waxay ku leedahay markeed la hadasho maandhow wax jir allaa og macnaheeda hadda waxaa lagu soo aruuraba dowladduda intii kaleeta iska soo dhaaftay kheyr allaha siiyey waxay maraysaa inay al-shabaabkii propagandadoodii ay hawada geliso idaacadihii dowladda kasii dayso yani hadda waxaan fiirsanayaad u malaynaa inkastoo laga yaaba inaad mar kale uga hadli doontaan amaba dee ay qorshaha kugu jirin wiil macalinka laleeyahay oo waxaan dilay intaasoo qofood oo kuna raaxaysanaya markuu sheegayo idaacaddii dowladda laga sii daayay dowladdu ma shabaabay propaganda u samaynaysaa ma dadkay cabsi gelinaysaa laanna qofka soomaaliga ah fiirsaday ee wiilkaas intuu shacab dilay iyo kalsoonida ka muuqata fiirsaday wuxuu dareemayaa inuu qof dambe oo la aamino iyo meel dambe oo lagu noolaan kara aysan jirin shabaab iska dhaafa haddii nin dee magan allah u yimaado uu ku yiraahdo nimankii aan ka socdaa waxbaan kaa doonayaa dadka xamar waxay marayaan inay dhahaan imisaan ku siiyaa aan cabsida heerkay marsiinayso dadkii baa qalqal gelisa dowladdu soomaalida gar iska dhaaf wax in la baahiyo ma aha marka waxay ahayd yarkan wariyaha oo leeyahay waxbuu ahaay waxaan markaad fiiriso aad macluumaad u muhiima oo dowladda looga mahadiyo oo dal runtii la dhihi karo shaqo fiican baa la qabtay baan leeyahay anigu aad baan uga mahad celinayaa ciddii xogtaas keentay hadday run tahay soomaad garan laakiin waxay ahayd inaysan tababaradana soo dhaafin amniyaadka soo dhaafin securityga soo dhaafin wax yaroo laga soo gooyana dadka go-aanka gaadha siyaasiyiinta loo soo bandhigoo la yidhaahdo war sidaanay nimankii qorshahoodii iyo istaraatiijiyadoodii qaabkoodii oo xog laga helo laakiin shacabka la qalqalaya maahayn waxay ku tusaya marka faham darrada ay hadda sheegayaan ragga saaxiibadeeya oo le warheedha nimankii miyaad la shaqaynaysaa maxaad hawada u gelinaysaa oo dadku u cabsi gelinaysaa ciidankii soomaaliya oo awood u leh inay nimankii la dagaalamaan maxaad gacmaha u qabanaysaa ujeedada aad ka leedahay soomaaliya dowladnimadaadu maxay tahay hadalka ugu dambeeya ku inta hadalka inta ka bixin rabaa markii nimankan warbaahinta ka shaqeeya ama dowladdu ay soo bandhigto qof oo qofka uu ka hadlo dhibaatada uu geystay mayse ku muuqanin dhinacaadu ka eegaysa maahan dhinac kale ay dowladdu is leedahay shakhsi Soomaaliyeed baa la isticmaalay dhibaatada inta leeg buu geystay iska waardiyay dadka guryaha idin kula jiro ehelkiina iyo qaraabadiina kanba hadduu waxa keeni karo samayn karo kuwa kale oo gurigeedu la joogana way samayn karaan waxaan ognahay xaruntii dowladda dhexe inay gabar in lala ay qarxisay sida la sheegay intaan ognahay so maada arkayna dowladdu inay isticmaalayso wacyigelin war iska waardiyay cadowga guryaha idin kula nool aysan ahayn propaganda al-shabaab loo sufidinayo waa sax dhinacaad ka tirta waa sax laakiin haddana aan ayadii lafteeda isla fiirino shabaabku dad 18 mitir ma ahan oo leeyahay qof intaas dhirir laaga dad aragtaan iska ilaaliya dad aad u burburan oo leeyahay waa 200 kiilo dad aragtaan iska ilaaliya ma de wiilkaano aad muuqaalkiisa aragtay hooyadiisna ma oga laga yaaba xaaskiisuna ma oga walaalihiis ma oga Soomaalida gar way ku annaga lafteena waan ka soo shaqaynay hay'adaha waxaan arki jirnay nin annaga nala shaqeeyo hay'adda u shaqeeyo sargaal sare ah oo cidiisi wax kale ugu qoran nin shabaab oo soo qaban wiil shabaab oo soo qaban aabiis oo san ogeyn marka horta de iska ilaaliyadu macna kuma fadhiso maadaama qofka calaamad lahayn Soomaalida garan dadka waxyaabaha hadda isleeyahay waa muhiim hadda in la sheegana ay waliba aad qaali u tahay Soomaaliya meesha al-shabaab iyo al-qaacidadu ay ka gaareen waxaan isleeyahay adduunka kale wali ma gaareen dadka Soomaaliyeed way naceen al-shabaab way naceen yani qalbigoodu ka go'ay nabad iyo horumar doonayaan waxay doonayaan nabad laakiin markay naceen iyo waxa isku soo aaday markii cid ka dulqaada ay waayeen Soomaalida garan hooyada Soomaaliya dawladda halala shaqeeyo shacabku waxay nimanku shacabkii dhex joogaan la leeyahay qofka yay wacdaa maanta islaanta hawada loo soo mariyay wiilkan dadka dilaya macalinkiiya ee fannaankii leeyahay waa ayagii qaabkan u shaqeystaan ganacsadihii bay ka shakisantahay qol la shaqeeyaa ma jirto laakiin waxaan ku hubaa hadii la helo dawlad anu ma ogi dawladdan waqtiga u haray inay fursadan haysato wax ku qaban karto laakiin waqtiga dhimane soo socdo waxaan hubaa hadii la helo dawlad danteedu tahay inay dadka badbaadiso shacabka Soomaaliyeed meeshuu raba joogo wuxuu ku leeyahay shabaab nolosheedii baan u nacay diinna waan u nacay dadnimana waan u nacay bahalaan u arkaa
shalay waxaad arkaysa inay shabaab markii ugu horreysoon arko ay inkireen qoraal ay soo saareen soomada garan waana waxaan isleeyahay waa markii haddaan qaldaneen ma badna inay wax inkiraan laakiin waxay sheegaan waxay sameeyaan way sheegtaan maxay na tusinaysaa inay dareemayaan inay meel kale lagu hela galeen oo taageerayaal weynayaan soomada garan waxaan isleeyahay marka shabaab waa laga adkaan karaa markii ugu xumeedayna ku jiraan laakiin cidii ka adkaalahooda ma joogto wadanka maanta waa gartay rayga ku xitaabana haddaan dib ugu noqdo taliyihii hore ciidamada nisa cabdullaahi sanbuloshe waxaanu arkaynaa mudane sida muuqata in al-shabaab ay canshuur qaadayaan meelaha qaarkood gaar ahaan magaalada muqdisho meelaha iyagu joogaan bay iska daa magaalada muqdisho gudaheeda dhanka kalena waxaa muuqata dowladdu inay dhigtay wadooyin waaweyn ay xirtay inkastoo dadku qaar ay dhibsadeen dadka badankoodu ay leeyihiin nabadayda ayaa ka muhiimsan inaan saacad ama laba aan daaho mayse kuu muuqin dhagaxdaa in la badiyo oo wadooyinka la xiro si dadku ay nabad u helaan hadday rabaanba nolol maalmeedkooda ha ka daahaan dhanka kale sidee bay ku dhacdaa al-shabaab inay qaadaan canshuur magaalada muqdisho gudaheeda baa is leedahay su-aashaas intaanan ka jawaabin su-aalihii ay saaxiibadeen hore ugu jawaabeen laba iyo mid inaan uga noqdo soo dhowo waxaa ka mid ah adigu haddaa weydiiyey xuseen ama ninka la yidhaahdo cabdisalaan oo adiga weydiiyey dowladdu dagaal ay ku jirtaa oo xaggay ku boodayso intay ku dhacayso horumaraa muuqda horta waxaa la yidhi libaaxu hadduu dilo dooli hero lama dhihi karo geesi lama dhihi karo dowladdii soomaaliyeed hal meel aan dana ku qabanay hal meel aan wax ku qabanay horta wax laga rajaynayo maahan confusionkan wuxuu ka bilowday maalintii koowaad oo madaxweynaha la doortay calaamadaha wuxuu bixiyey amisom inuu ka maarmaayo meeshaas horta amisom niyadjab iyo jahwareera uga timid waxaa kaloo la rabaa dagaalkan waa dagaal raba in la ballaariyo dagaal muqdisho iyo nawaaxigeeda in lagu soo koobo lama rabo yani inuu ahaado lama rabo midda hadda ay weydiisay shabaab ayaga iyo dadka horta dhexdooda waa laga baxay ayaga u gacan bannaan markooda shaqeeya fulintooda shaqeysa qofkay rabaan ay dilaan meeshay rabaan ay weeraraan saacadda ay wax weeraraan hal qof oo ayagii dadka ku dhex jirto ma jiro dowlad dadka hadda fahamsan duruufaheeda iyo baahidoodana ma jirto therefore garoon cidla oo qof kula ciyaaraysa aan la arkin ayay keligood isaga ciyaarayaan qodob waa qodobkaas dowladduna waxay u muuqataaba in shabaabka iyo dagaalkii lagula jiro uu dhammaaday oo ay ku aruurtay siyaasiga ay sheegeen ayada ka taladaha oo wax ifinaya inay la dagaalanto oo weliba magaalada muqdisho 2019 $220 milyan laga qaaday hal xabo oo lagu qabtay lama arko shabaabkuna intaas oo kale u ka qaatay dadkii deegaankaas u dhashay oo dadku u dhashay oo ciladaha jira ifinayana qaayna wadan dawladiid shishay oo kalkaal baa la leeyahay marka horta dadka meelaha u dhashay maxaa ka wadaa Cabdullaahi dadka deegaan ka soo jeeda dadka deegaan hortiisa dagaalka beebeen marka laga baxo dagaalka shabaab wuxuu ka socdaa muqdisho iyo nawaaxigeeda dadka Soomaaliyeed Puntland degan Somaliland meelo kala degan waxa qaraxa iyo burbura iyo rafaada iyo dib u dhaca oo muqdisho nawaaxigeeda ka dhaca horta kama dhacaan therefore horta dagaalka yaanan wareerin xarunta iyo ubucda argagixisadu waa muqdisho iyo labada shabeelle horta focuska meeshaas aan saarno dabcan dadka muqdisho degan iyo deegaanadaasu waxa ogaadaan mid war dadka Puntland jooga iyo dadka Hargeysa jooga sida leedii marxabaabiyo oo beenta leedii ku sheego been uma qaataan idinku dawlad maantay duruufaha jirta idinka dul qaadama joogtee dadka wax garadka muqdishona wax iga degan waxa la rabaa intay iswarsadaan ay dhahaan dawladda demand ula tagaan ay dhahaan ABCD annagana waa qabsanayna idinkana la qabta oo culeysku waa inay ayagu iska qaadaan horta meeshan problemka jira waxay tahay dagaalka shabaab ownership male sida ka soo qabo hadda ciidamadu sidoo abaysiin adduunka wax leeyahay national defense jira oo cadawga dibadda ka soo duulaya ciidamada difaac military jira iyo dad law and order ilaaliyo police oo law enforcement ilaaliyo hadda dagaalkeenu shisheeye miya sokeeye miya ma isku qasan yahay horta wuxuu yahay lama yaqaan cid dagaalka hogaaminsana lama yaqaan laakiin ciidanka military wuxuu leeyahay sargaal ugu sareeyo ciidanka hogaamiye nisa waxay leedahay sargaal u sareeya booliisku mid buu leeyahay nidaam iyo waxaa jira jaranjarooyin ciidanku ay u shaqeeyaan maxaad uga soo qaadaysaa meel aan waxba ka jirin oo jaahwareera sidii suuq xoolo lagu kala iibsanayo oo kale waa ku sidee horta meeshaan nisa iyo booliiska iyo militariga wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga wax coordination iyo wada shaqeyna iyo exit notice oo horta ka dhaxeeya ma jiraan aniga intaan ogahay
dad oo nool subaxii soo tooso albaabka hebela ku taagan safar hebla ma soo dhacay gaal heblaan la kulma madaxweynaha soo salaama ra'iisul wasaaraha budget ka soo qaadana intaas ku dhaxmeeraysta waa dad horta ayagu inta meel fadhiista qidad ka shaqeeya istiraatiiji ka shaqeeya qolo walba waxay qaban ka shaqeysta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ma wada shaqeeyaan adduunka ka soo qabaniisoo kaleeto waa meeshii loogu talagalay dagaalka annaga hadda adduunka iyo annaga wax isku keenay dagaalka argixisada dirka waay centerkii adduunka nagu xiri lahay waaye dawlad qadar la yiraahdo bisi Allah ila taa maraykan shaqo kuma leh ingiriis shaqo kuma leh dawlado kale oo arbeed shaqo kuma leh EU shaqo kuma leh regionka shaqo kuma leh simply ninka la yiraahdo fahad waa baxa qadar uu tagaal caaw ka soo qaata meeluu kaamir ku dhijiyay Abdullah waxaan jeclahay wax aanan cadeyn karinin inaadan dhihinin maxaa yeelay fahad lama joogo wala difaaci karo waa caddahay fiiri waa caddahay hadii dawladii arbeed marrabna doodeenu inay noqoto weerar ka dhan shakhsi adigu booskaas shalay ku jirtay ku jira maanta oo dadaalaya iyadoo gaabis fara badan oo wada kala mararka qaarkood ii kaada Cabdullaahi aan isla qaybsano aan isla wadaagna Cabdullaahi waxay riikaadi Fahad Yaasiin haddii uu taga qadar inuu lacag ka doonay maaha hadduu Turkiga taga maahan saraakiishu intaa way socotaa waxayna ka shaqaynaysaa dalka iyo horumarkiisii laakiin su'aashaan rabay inaan kugu soo celiyo waxay tahay afka loo gashay adduunkii kalena waa laga jaray Soomaalidana waa la kala jaray muslim data waxa difaacayo hadii kale kaaga tagaynaa meesha inaadan tagin baan jecelahay laakiin muslimnimadeeda inaad gorgorisid ma rabo maxaa yeelay Ilaahay baan ku kalsoonahay waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga su'aalo kale oo badan oo kulana waa noo soo socdaa waxaan jecelahay inaadan xanaaqinin oo isdajisid maxaa yeelay mawduuc muhiim ah laga hadlayo Cabdullaahi saadugu ma dhihin meesha ceebaha in la asturo lama rabe waa in la sheego Soomaalida hadii aan la sheegin say halka loo helaa runta iyo xaqiiqadan sheegaynaa laakiin barnaamijku ma ahan inuu shakhsi noqdo hadda for example waxa tiro kale ammaankiya fashilan Sooma ammaankiya fashilan yahay waa in ciladaha la taabto ma cilada in la taabto waxa shaqo kuma jiro laakiin in shakhsi la weeraro sidii aan joogay ammaanka dalku waa siyaasadaysan yahay adiga laftiraaga hadii halka laga weeraro nima waa afduuban yahay waa siyaasadaysan yahay dadka looguma shaqeynay manaa ku shaqeysta warnimo nima kaanood ama shaqada qabta ama naga taga barbalamiya waa gartay haddaan dib ugu noqono su'aasheedaan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay oo mawduucan la xiriirta haddii al-shabaab ay qaadayaan canshuur dadkiina ay dhibaataysan yihiin dawladdiina ama ay taageer tahay ama ay dadaalayso adigu taliyaad horey u ahaan jirtay maxaad kula talinaysaa dadka Soomaaliyeed ee amniga ka shaqeeya hameen iyo maalin u taagan oo naftoodii iyo maalkoodii u horeeyay in ay dalkaas iyo dadkaan hore u socdaan horta taladaan raba inaan siiyo dadka ammaanka ka shaqeeya horta waxay tahay wax hadda noo yaala ma shaqeynooyaan completely waa fashil marka waxay tahay waa in review lagu sameeyo reviewga maxay tahay haddii reform la sameeyaa la yiri maalinka ciidan reform la sameeyaa la yiri tayaxumaana laga sii qaaday haddii marka madaxda meesha joogta ee ammaanka madaxda ka ah intaasoo fursada la siiyey ay horta waxba qaba waayeen xaaladan wax ka bedeli waayeen ra'iisul wasaaraha waxa la rabaa inuu dhammaan security sector reform ku sameeyo madaxda jirta bedelo kuwa cusub oo keena new dynamic iyo new momentum abuur waa qodob haddii ra'iisul wasaaruhu taladaas qaado waayo oo nijeclaysi iyo kooxaysi iyo isheega maxaan ku dhahaa dad qaas meesha in lagu ilaaliyo lagu naas nuujiyay taan madaxweynuhu waa inuu xukuumadda dhan kala diro including the prime minister madaxweynuhu haddii uu kala diri waayana waxay tahay dhibaatadu waa la kala badan yahay waxa la yiri sidaad rabtay hadii la waayo sidii la hur waa la yeelaa dadka degan Muqdisho iyo nawaaxigoodu ha isku tashtaano ama shabaab ha la heshiyaano ama iska dhiciyaano ama dawladdaanu intay banaanka u soo baxaan waa ogtahay Arab Spring waxa ka dhashay hal wiil oo isgubay banaanka inta loo soo baxo annaga laba dhagax kuma dhex jiri karnee dawladdan waa in meesha laga saaro sidii Sheekh Shariifan qaba hadii wixii loo diray ay qaba weyso period marka sidee looga saarayaa maadaama dawladdu ay sharci ku fadhido Cabdullaahi fursada la siinaa waa sheegay talaan keenay fursada la siinaa fursadu waxay tahay ra'iisul wasaaruhu teamkiisa security-gu ma shaqeynayaan waana guul daraysteen ha bedelo marka dagaalka aan ku dhameystiro dagaalka maamul goboleedyada lagu jirona hal la joojiyo dagaalkaas dagaal ga guul gaar ma hayaan waqti la iska luminin kulli Soomaali ha la isku keeno adduunkana intii waxna taraysa aan keeno hadda waa la socotaa Mareykanka basekiisa waa la weeraray bal dogla la weeraray
nimankii awoodooda iyo qidadooda inay sii kordhaysay muuqata maraykankana dowladdan iyo waqti isaga lama haddaysa bartan noo karin waa in lagu wasaaraha bedelo dhagaxaanta waa in la dhaqdhaqaajiyo waa gartay arrinta cashuurta rabaan dib ugu noqdo adigu xilligii aad taliyaha nisa ahayd al-shabaab canshuur ma qaadi jiray ma qaadi jirin haddii qaadi jireen si gabad ahoo periferiga ahoo ama suuqa xoolaha iyo bakaaraha wixii ka xageeyay laakiin jidka Maka al-Mukarrama iyo jidka wadnaha iyo dekada iyo airport iyo shaqaalaha dawladda to the extent oo leeyahay nisa qalabkeeda oo dekada kasoo degtay lagu xukumay in cashuur baxshaan waligeed ma dhicin oo shabaab waa gacan banaanaaday iyo dadkeen waa jabsaday qof ka qabtaana la waayay these people they don't care shaqadooda maaha waa gartay Cabdullaahi halka uu ka cabaar baan ku sii umaleeyaa labada kale oo markaa ii dul qaado Cabdinaasir Cabdisalaan waxaad maqlaysaa taliyo sidoo u hadlayo xogaal baa tahay sidee al-shabaab looga adkaan karaa waa maxay wajiga kale oo loo baahan yahay waa haddii ay sax tahay siduu u dhigayay oo ah inay dawladdu fashilantay waa ra'yigiisa way ku tixgelinaynaa dawladdu ayada imaan weyday isdifaaci weyday xilligeedii waqtigeeda la xisaabtamo inaan helno sidee loo heli karaa in ummadda Soomaaliyeed nabad ay hesho oo caasimadda Soomaaliya oo muraayadii dunida ay naga daawanaysay ay dib u iftiinto abtaad waxaan dheelahay hadal hadaayi oo taliyuhu yiri oo ahay horta qofku markuu mas'uul yahay hadduu fahad yahay hadduu ra'iisul wasaaraha yahay Cabdullaahi maartay Khayre ama uu yahay Farmaajo horta qofku shakhsi ma aha haddaad mas'uul tahay shakhsi ma tiid anaad mas'uul iga tahay waa inaan wax ka sheegi karo horta de marka nin gurigiisii jooga ma ninka laga hadlay cadaynta waa laba wax kala duwan cadaynta markii la raadiyo qofku waa nin mas'uul anigoo kale mas'uuliyadan sheeganaya anaa mas'uul ka ah waxaan sheegay anigaana koodkeedii referensiga la isoo weydiinay waxaan markaa leeyahay ixtiraamo mas'uuliyadeedu la yiraahdo adiga niyo ku agta anu war kama hayno laakiin sheegashada adiga ku badanaanta waa mid tan labaad oo su'aashaada markaan ka jawaabo adafiyadu waxa meesha ku baaba'aya waa wixii naga dhaxeeyay dawladdu mas'uul bay ka tahay waxa baaba'aya waa aniga waa hooyaday waa dalkeeni Soomaaliyana maalinba darbiyay ka sii gudbaysa meesha laga qaban karay meel aan ahayn bay ka sii dagaysa waxaan isleeyahay waxa lagu eeday kara cidii mas'uuliyadda qaaday laakiin haddana qof kasto oo annaga naga mid ah Soomaaliya oo bini aadam waxa laga rabaa inuu dadkan maxal qaban kara yiraahdo taliyu wuxuu soo jeediyay talo waa muhiim aad muhiim u tahay laakiin waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliya maanta iyadu gacanta ku dhagan baabuurka steerinkiisa wada meesha oo maraya iyo cidda saarno ay dadkii yihiin waxaan aad u rajeynaa oo waliba ka codsan lahay xanuunka aniga ahay inuu gaaro oo idhaan dhagaxan 4 mitir oo isku weera wadarta xuduudda hadda waxay taalaa sayidka iyo xaawataako ayaa laga soo galaa waxaad umaleyseen ma taas laftii inay sahashay inay shabaabka dadkii loo aruuriyo oo markii buuxsamaan saacadaha rash hourka anagu aan u naqaano lagu dhifto taas laftii wax shaqeeya ma aha qofka magaalada xamar jooga marka Allah wuxuu ku leeyahay dhinaca dawladda markaan imaado baan ku soo wacaya macnaheedu waxa weeyaan dawladda meelaysan xukum horta marka daruufaha jira dhibaatada waan ka dheregsanaa Sooma see wax lagu badbaadin karaa wixii jira way fashilmeen waana ku raacsanahay saaxiibaday laakiin hadalkaaga isku saabsan aan ku dhigay waxa inaan israacsan rabaa si aan marka Xuseen ugu gudbo barnaamijkan wuxuu helay document classified يعني حساسي waxaan ognahay in kaamirooyin cusub loo soo gaday maxaa la yiraahdaa magaalada Muqdisho oo security lagu waardinayo isla mar ahaantaana dhagaxda meesha yeelan laga qaaday oo la geenay ilaa ay jidka warshadaha oo kore dawladdu dadaal bay haysaa hawlada waa fashil sida saaxiibaday sheegeen wuxuu sabab loo shaqo qosli wuxuu libaaxu hadduu dooli dilo laguma amaani karo laakiin hal dooli waa laakiin dooli waa meesha ku dhintay soo hal dooli dawladdii Soomaaliya waxaan ka sugaynay waxaan uga fadhinaa maaha waxay hayso waxaan inta ka wadno waa midaas barnaamijka kaamarooyinka laftiisa aad iyo aad u muhiim u yahay waa wax loo baahan yahay waa waxaan isleeyahay Soomaaliya way u baahan tahay security qayb weyn ka qaadi doona cidii lacagtaas bixisana ayada un baa garanaysa laakiin ujeedadu waxay tahay kaamaradu waa taqaano waa iluna maskaxi u baahan tahay haddaan maskaxu jirin ishu macna kuma fadhiisada waa guluub meesha ku dhaganayna qoraysa waxa dawladda laga rabo waxay tahay kaamarooyinkan iyo jidadkan aad falayso waa muhiim laakiin waa inay daba socdaan wax kale oo hawshii qabanaya waa inay jiraan uma jeedno annagu
hay-addii nabad sugidda ugu awoodda badneed amniga la dagaalanka al-shabaab iyo sugidda amniga aadne meeshii baa laga saaray wax lagu bedela ma hayno soo haddamaad garan waxaan isleeyahay marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ah dadka mas-uuliyadda soomaaliya qaaday bilaa caleyg ha fahmeyn in xaaladdii hore soo dhaaftay shir iyo sheeko iyo taliyo soo labistay iyo uniform la gashto berriyaan afkooda qabana bilaa caleyg waa soo dhaaftay bahasho meesha ugu qaraareed oo qof qaran sheegana oo ku hoos noolaaday ku nooshaa maanta meeshan Soomaaliya uma qalanto mana ku noolaan karto adinkana mas'uuliyadda hayee diyaaran u nahay aniga hadda shakhsiga kula hadlay waxaan diyaar u ahay maanta talal weydiyo inaan si sareexa leh aan ku ila war sidaan iyo hooyaday baa meesha ku nool sidaan hooyada markaan ku leeyahay hooyo kasto Soomaali sidaan waxa loo bedelo Soomaalida gaar manay qofku ugu horeeyo tala weydiistay ama yira waraan la talinaya arinta kale marka ayadana aslaayahay aad muhiim u tahay waxay tahay dawladda waqti yara u haray dawladihii hore aan soo aragnay markii hal sana harto buski iska kici jireenoo awoodaysa lahayn la imaan jireenoo si loo doortay de kaar u helaan ay doorashada ku soo galaan waxay sameey jireen de awoodaysa lahayn ku kici jireen laakiin dawladdu waxay oran kartaa hawshu waa socotaa si nidaam ay ku socotaa adigu ma aragtid oo dawladda ka soo horjeeda Cabdi Xafiid waxaan ka wadaa ما سيدي اللي جوجي قنسيان هي اللي جوجو أركويان حتى تعرفين هذا أنا كسي في عناته حتى هذا حمانا ده ما بكو جرت شو مركب سمعت قرأ مركب الدولة حتى واحد سلاية حدي لاست يير تصنف قدام بيا كارك دور الشطر وضمت الصومالي اللي وحان قبته دقاجي ويسو وحدتكم حيليه وايد ما تي ده كرفان باودي من مركب وحن لا يهاي فرصته هدي جرتبه مركان إنرجي هدي اللي إنك وايد تبر يوسف صارد يو وحشة شو لين كمان فديه وقت جيدي كفايديسته. وإحنا أنا حسين وجود بنتنا وجود بنتاوي يروح حتى أول سنة برنامج كيفية أو برنامج تبع الله ومركي يقول رئيس تي في اليونيفرسال كهنا قاضي عاون وهمين كي كوباد وإن كمان عندنا على سعود كينا يصيروا داون إنسان. وحن ربا إن المركان حسين وجود بو حسين شركة والله سعود طبعا حوال بتاعي عاون مقدسة كسورة هاي ومد الصوماليات هو جديئة هي مارة عاصمة قرن الصوماليات. حسين عبدي السلام وحو يري كجر دولد وأنا هذا الشيء أو كجر نقضاء نبعتها جرته ما وحي كلها هاي دولد إني إسكهر الدو أي سمح بقى قبلين مسا ما دام سردون كان كسر شقيسة حوله حساسية أيها الصعدة أو عن لوب بحرين الميكروفون مساجد اللوجا قد ما حول في عم بصعد حكى الله دارنك. وما سنتي I wish شرطة إنه قيبت اللباد وسؤاش هذا يتحي لكن وحان ربي عبد الحفيظ شعب الصومالية نواقيين محمد عبد الله فرماجو يحسن على خير سدح هذا السنة عن ملاينا يا أسبوعيو أيا وقدما سدح هذا السنة وحا أي قبتين يوحي كهالله انتبه إيجا dadka Soomaalida ah wali sida aan hadda ku soo hor fadhiisanayo caawa dawladda aad fursada siisay ku soo hor fadhiisan weysay wali wariye xor ah oo aysan waraysi oo staged aanan ahayn ilaa hadda dadka shacabka horta soo hor fadhiisan wixii ka xun iyo wixii ka fiicanba xuseen kama dhaxgal waxaan rabaa inaan ku daayo waxaan waraysi kaga qaaday halkan studio aan fadhino ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan hadda ka hor halkan ka waraysanay barnaamij toosan aan kaga waraysanay marka waxaan rabaa in arrinta ku sheego waxaan ogahay waraysi kale inoo soo socdaan hore wado aniga kulli record kan hayo waa xogogaalan hay all staged inay hayeen ayaan hayaa aniga kula hadlay ayaa halkan ka qaaday recordka marka haysid iyo ka anigu ogahay farqi weyn baa u dhaxeeya sidoo kale waxaan ogahay ama jecelahay in dadweynaha Soomaalida xasuusiyo markii madaxweyne Farmaajo magaalada London uu yimid 5 daqiiqo oo waraysi ayaan ka qaaday gurihiisa wasiirada joogay TV-ga Universal baa joogay guri dawladda Ingiriisku ay leedahay su'aalaha aan weydiiyana kuwa aniga iga socday ahayn asaguna ma arag cid kalena ma arag marka maxaad u leedahay stage bay ahaayeen horta markaas anigu wax baan ka joogay maalinkii 12ka May ayay ahayd arrin war haya ayaa keentay 12kii May ayay ahayd waxaa u ballansanaa ilaa 5 idaacadood oo Soomaali ah iyo 4 caalami ah intaba albaabku ka soo xirtay anaana joogay marka Cabdul Xafiid
isku celceliska hadalka wuxuu taraay male macluumaad guud 3 sanadood laakiin xuseen arrintan waraysigu muhiim bay leedahay waxay muhiim u leedahay haddii madaxweynuhu uu ka tegay warbaahintii kale uusan waray anigu kama hadli kara taas laakiin on the maxaa la yidhahdaa record waxaan ku cadaynayaa waraysi inaan la yeelanay asagii ra-iisul wasaarahaba waraysiyada TV-ga Universal oo anigu shakhsiyan aan qaaday iyo kuwa kale warbaahinta dalka ku jira Universal ka shaqeeya ay qaadaan in la stage gareeyo oo la qurxiyo annagana karaamo darre nagu tahay ummadda Soomaaliyeed sharaf darre ku tahay madaxweynaha ka yeelin wala ra-iisul wasaaraha ka yeelin caawinayo daawanaya soo dhawow la horey u soco maaragtay yani wax ummadda Soomaaliyeed ka wada warhaysa inaan isku celcelin horta waa Cabdilxafiid horta waa ra'yiga ku tixgelinaya laakiin in saxan baa ku sheegay laakiin the point waxay ahayd mas'uuliyad ayaa loo dhiibay mas'uuliyadaas waana lala ku fikiraa waana lagu guuleysan karaa waa wax iska bini aadan waaye mas'uuliyadda laakiin waa in mar walba lagula soo noqdo dadka oo loo sharxo hadday wax halaabeenna si wax u halaabeen haddii wax wanaagsanaadeen oo wax ka dhiman yihiinna dadka loo sharxo cilada ugu weyn oo dalka ka jirta anigu aan arkay waxay tahay in 3 sanadood aamus iyo miidiya ka gambasho iyo shacabka gambasho ayaa dalka lagu waday meesha sarta ka quruntay oo caawa aan anagoo inaan wareersanahay amal isku wareysanayno amniga inuu wareersan yahay waa loo yahay waa loo jeedaa laakiin intuu ka haleysan yahay sababta aan u leenahay ma taqaanaa because caawadaas ugu dambayso markhaati hadda caawa fursadaad siisay midkoodna ma imaan marka Cabdulxafiid dadka mas'uuliyiinta oo dalkan waa anagoo kale waa bini aadan ceebaha ay bini aadanku yeeshaan oo dhan way yeelan karaan laakiin ceebta u dheeriga waxay tahay inay mas'uuliyadooda inay mar walba ka gambadaan oo aysan maaragtay daaha gadaashiisa ay dalka ka galaan dhibaato kasta ummadda ka dhacday ilaa maxaa u hadli weysa madaxweyne la yiraahdo inuu soo tacsiyeeyo maaragtay dhowr maalmood kadib waxaas waa waxa dhaqanka dawladnimada Soomaaliya ku cusub marka Cabdulxafiid بكل احترامكم waxa waaye nimanka odayaasha ah aniga shakhsiyan laba nin oo aniga aan saaxiibanahay oo wada naqaano Cabdullaahi saaxiibay yihiin way siqaanaan ma aha wax personal ah ma laakiin mas'uuliyadda hadda 2,000 qof ayaa dhimatay ayaa oo shacab ah ayaa daytada ku qoran labadaas kun oo qof oo shacabka ah daytada shaytan aklayd miya waxaa ku qoran 1,537 qof maaha waa 2,028 daytadaas aad sheegaysid baan ugu hayaa laakiin intaas ku qoran way ka soco qof walba ay geli kartaa 2,028 oo shacab ah ayaa shabaab dileen ma shacabkii oo bajaaj leeyda la dilay kama hadlayo shacab shabaab dilay recordka ku qoran waay marka waxay ka difaaci kareen in niyad wanaag inay dalka ku maamulayaan haddii shacabku ogaan lahaayeen waa loo garaabi lahaa waa loo gurman lahaa shacabka yani inay shabaab la dagaalamaan ayaa ka dhalan lahayd marka yani markii la soo waayay farsamo iyo siyaasad fiican iyo wax oo dhan waxa la laayahay qalbi wanaaga laga laayahay dalka madaxda dalka meeshaas waa meesha sarta ka quruxsan tahay waa gartay Xuseen waa ku soo noqonaya waxaan u gudbiyaa taliyaha Nisa Cabdullaahi Sanbalooshe daawadayaal waxaad daawanaysaan TV-ga Universal barnaamij cusub oo ifiye la yiraahdo dawladda Soomaaliya halkan baaqoon uga dirinaa inay ka garnaqaan eedaynta loo soo jeedinayo bulshada Soomaaliyeed ay soo hor fariistaan oo ay la hadlaan waxaanu ballan qaadanaynaa inaanu fursad idin siino aad ku hadashaan su'aalo adagna idin hor dhigno si bulshada meesha cuncunaysa aan ugu xoqno invitationkaas albaabkiinu yaala Cabdullaahi Sanbalooshe waad dhageysatay labadan mas'uul ee caawa martida barnaamijka noogu ah maxaa kaaga baxay maxaad isleedahay waqtiga dawladda iminka u haray xagga amniga way ka bedeli kartaa walaa aniga ma qabo in hadda wax weyn ay soo kordhi karaan haday waxa sheegtay kaamirooyinka magaalada ugu dhijiyay howlna socoto horta kaamirooyinka shabaab lagu ilaaliyo ama daran lagu ilaaliyo siyaasiyiinta anaga aan ku kan lagu ilaaliyo taas horta dadka Soomaaliyeed ha ogaadaano adiguna ogow shabaab loogama shaqeeyo waxa ku soo haray aniga sida aan aaminsanahay it's never too late wixii tagay waa tageen hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa la rabaa Soomaaliya inta isugu yeeraan
doorasho xaq iyo xur iyo xalaalana in la abaabulo gacanna shabaabka lagula dagaalamo ayadoo laga qaybgelinayo dhammaan maamulada dalka ka jira dowlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka oo aan saaxiibada aan nahay bal space doorasho lagu qaban karo oo ayagana ay jugta iyo weerarada iyo baahalnimada looga hakin karo horta hal la abuuro meeshan waxa la yiri hadii geelle heshiisa cili biicta or after all there can never be good governance without good politics hadii aan siyaasadda la hagaajin wax hagaagi kar lama arko hadii aan dad mas'uuliyiin oo xilkasa oo niyad wanaag leh oo waxaan aakhiri adduunyada in la isku xisaabinayo aaminsan aan xilka loo dhiibinina hore looma socon karo hadii dagaalka dad fahamsan aan loo helin dagaalka hore looma socon karo overall aniga waxaan qabaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wali fursad ay haystaan ciidamadii ammaanka magaalada Muqdisho iyo labada shabeelle ka shaqeyn lahaa galmudug inay ku caburiyaan ay u direen wax la aqbali karna meeshaasna waligeed nabad ay aheeday qaraxna kama dhicin dibna kama dhicin maamulkeeda iyo ammaankeeda ahlu sunna hay jirtay waa la socotaa hadeertaan ciidad waxaan oo dhan oo gaab ah oo ka imaanaya ciidamadii waxaan dabool lahaa ayaa galmudug iyo meel kale si qaldan loogu isticmaalay marka galmudug dalkay ka mid tahay in amnigeeda la sugo meesha sax ahayn ahlu sunna wal jamaa xildhibaanay keensadeen doorasho ka socoto horusocda ikaan Cabdullaahi ikaan hal mar cabar baa hadlaysay ra'iisul wasaaruhu 40 maalmood ku dhawaad buu fadhiyay waa ra'iisul wasaarihii kaliya oo u bareera in uu galmudug meesha ay maanta marayso meel ka fiican oo tagto danihiisii iyo duruufihiisii iyo gurigiisii waa uga tegay dadaal fara badan buu muujiyay maanta galmudug doorashay u socotaa baarlamaanka labaad baa la dhisayaa ahlu sunna wal jamaa waxay leeyihiin 20 xildhibaan what is the problem after all aniga waa ma inkirsan qof inkirsan lama arko ra'iisul wasaare uu dadaal ku baxshay oo waqti geliyay oo risk qaatay laakiin su'aashu waxay tahay natiijadu maxay tahay natiijadu waa fragmentation natiijadu waa khilaaf natiijadu waa dawlado fara badan oo meeshaas ka dhalan doona natiijadu waa in finally deegaankaasu because of khilaafka iyo balaayada ay dawladda geysay suurtagal tahay ama dadka deegaanku isku laayo ama finally laba shabaab oo gacanta u galo markii dadaalkaasu dadaal maran dhalay ma ahan waa dadaal fawdo keenaya iyo halaag hor leh ra'iisul wasaare waxa la rabaa intuu hadda tago guddiga doorashada laga muransan yahay wixii cilada jira laga saaro guddi cusub la dhiso hadii hadda ahlu sunna madax looga dhigana cirku ma dumaayo wax ka halaabay lama arko dadka madaxda rabo meeshaas wax ka danayna waxay rabaan oo aragtidooda la kuma dhigay la ogolaado overall shacabku wuxuu leeyahay oo bari hadii laga soo tago dadkaas oo difaaca karo oo u shaqeynayo waa in loo soo dhiso waqtigan ayaan laga lumin waa hagaag Cabdullaahi mar quraan kugu soo noqonaya adiga waxaan rabaa Cabdisalaan iyo Xuseen inaan siiyo من دقيقة دي برسيدي وأركان حلقة دينتي iyo maxaa la lahaa wixii dhacay waa laga wada hadlay waxaan u baahanahay inaan helno xal dadkeena iyo dalkeena ay horumar ku gaaraan 30 sano inaan dhibaato ku jirno ubadkeena jiilkii saddexaad uu ku koreeyo dhibaato iyo dagaal iyo maxaa la yiraahdaa dawlad daciifa inaanu ka baxno kulliyeena gacmaha aan isqabsano ujeedada iyo goolkeenu kaas weeye barnaamijku waa ifiya وهاجاك مركب وحنا ربعنا فرصة سيو عبد السلام مركب يكتد ظروف تجرته دولة حالة دراسيتها دبعتنا الصعوبة يو وناق الصعوبة الله بضع أضو إيجية محد سلاذا حي ليجا أمد الصوماليات إنه عملوية رأي عملوا جوجين كرو بيقولتها هذه على كتير هذا أول ما حصلها مركب كوباد قف حكم وما إمان العجنة وما بحين مسؤولين وما قاعدين وقلت كلية سمايو wanaag uun baa ku jiray dawladda waxun baa ka qaldamay horta wixii qaldamayda taqaan ha saxdo sida hadda yihiin waxa ma shaqeynayaan ha ku qanacdo hadday kalsooni ku qabtay in wax isbedeli doonaan wax isbedelayaan ha ogaato inaan sidaan waxba isku bedelayn sida saaxiibaday sheegeen iyadoo ku qanacsan inaan waxba shaqeynin wixii la isku diyo dhan qasaare ahaayeen waqtigeena dhumay dadkeena baaba'een inay hadda tiraado waxaan isugu wacaynaa yaa aqoon leh yaa dalkan u naxaya يا دمير كهرو صوماليا مال فاسيلتي هستا والدولة أما حلنا هالسوق كان أما حركة هالسوق كان تذكر تلا سوق وعلى يرادو قرشة كان قرن كان وحلاقة بدبادي أبا ما أنت لسما حدي بيش أما الله بلا بس ده بلا صوته لجوا يدولة الصومالي واحد هذا كهذا لينه يعني ركض كي هرنا يالله قف أنا وأن كم ده واحد عدانا يسون قاصنا يا إن يسن حلنا دمع سنين xogteeduna ay tahay inay si kale u shaqeyso marka waxaan isleeyahay fursaddaas u taali ha qabato wayna la siman tahay
diyaaraan loo yahay. cabdullaahi sanbaloshe haddii aan adiga kugu soo noqdo gabagabadii iyo gunaanadkii aan ku jirnaa xuseen ma hayo sida ii muuqata qof kastoo muwaadin kasta oo soomaaliya in amnigiisa la sugo dowladda soomaaliya ayaa ka mas-uula waxaan rabaa mawduucan maalin dhaweyd ka hadashay wax yar inaan ka taabano ma raba inaan ku noqdo wixii dhacay iyo duruufihii dabcan waa muwaadinkii weynaa libaaxii soomaaliyeed qalbi dhagax wuxuu ka mid yahay ummadda soomaaliyeed dabcan xilligaa adigu xilka haysay baa la dhiibay waad qirato waxaad tiri qeyb baan ka ahaa cafis baana ka dalbanaya ha laga socdo in sidaa la yidhaahdo waa dad badan geesnimo u arkaan dad badanna waxay isleeyihiin wax badan baa mugdiga ku jira waxaan rabaa inaan fursad kuu siiyo marka hore arrintaa inaad hal mar salka ka jirtid balse baaritaan dheer oo barnaamijkan uu intuusan hawadaba soo gelinin ama aan la alifinba aanu wadnay waxaan soo ogaanay maalintii qalbi dhagax uu ka tegeeyey aeroboortka magaalada muqdisho laba nin oo saraakiila ayaa kuu timid laba nin ayaa kuu timid oo mas-uuliyiin ah oo kugu yiri nin al-shabaaba ayaa ka baxaya aeroboortka u socdo gaalkacyo labadaa nin yay ahaayeen mudane subjectiga meeshaan u imaanay wuxuu ahaa wax kale qalbi dhagax mashruuciisu waa wax kale amnigee lugta ku haysaa mudane ma awalnaba answer that question waayo ma ka jawaabayo ma rabo maxaad uga jawaabi weydoo qaranaysaa maadaama walaal soomaaliyeed aad iibsateen barqadii si faahfaahsan waqtiniyo adayna waqtiga iska dil ana waqtiga dil I will never talk about that waqti badan baan u hayaa markay dhacdo muwaadin soomaaliyeed in la iibsado amxaaro loo dhiibo marka waqtigu iguma yara adigu inuu kugu yaryaha laga yaabaa labadii sargaal oo kuu timid yay ahaayeen cabdullaahi sanbaloshe badar cabdullaahi sanbaloshe waxaan jeclahay inaadan ka bixin inoo su-aasha ka jawaabtid fallaaro gelgelisho cidna ogama harto yaa ka mas-uul ahaa labadaa nin yay ahaayeen hagaag cabdullaahi sanbaloshe khadka ayuu ka baxay xaq buu u leeyahay inuusan su-aasheeda ka jawaabinin annaguna waxaanu xaq u leenahay inaanu weydiino qalbi dhagax waa muwaadin soomaaliyeed inta aanu nool nahay inta aanu ka ogaanayna ciddii amarka bixisay iyo labadaa nin cidday ahaayeen oo annagu aan ognahay cidday ahaayeen laakiin aan isaga fursad u siinayey marnaba ma joojinayno qofkii qalbi dhagax dhiibay ummadda soomaaliyeed ayuu barqadii iibsaday kulligood cabdullaahi sanbaloshe wuu carari karaa taleefonka wuu demin karaa wuu ka bixi karaa laakiin su-aashu weli way taagan tahay ummadda soomaaliyeedna qalbigeeda ayay ka guuxaysaa waxaan jeclahay barnaamijkan intaan kusoo gabagabeeyey balse waxaan jeclahay in u mahad celiyo walaalkay cabdisalaan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkan nagala qeyb qaatay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa xuseen macalin oo 100% u mahad celinayo waxaan si hagar la-aan ugu mahad celinayaa cabdullaahi sanbaloshe oo asagu laftigiisu barnaamijka qeyb ka ahaa inkastoo markii u dambeysay uu go-aansaday inuu asagu ka baxo aana jeclaan laha inuu joogo nevertheless xaq buu u leeyahay laakiin waa u mahad celinaynaa qeyb qaadashadiisa iyo maaragtay barnaamijka siduu maaragtay noogala qeyb qaatay geesinimada iyo sharafta leh aad baan ugu mahad celinaynaa xagga farsamada caawa halkan tv-ga universal looma kala harinin injineerkeena weyn cali naaji ayaan u mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinaya injineerkeena weyn ee labaad cabdixakiin fiqi oo asagoo stuudiyaha jooga waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo si weyn daawadayaasha tv-ga universal meel kastoo aad joogtaan waxaan idinka ballan qaadaynaa doodo xasaasi ah oan waxba la iskula harinin dhiigna uusan ku daadanin haddii uu ilaahay yidhaahdo runta inaan isku sheegno waa daruuri dowladda soomaaliyana mar labaad ayaan abiil u diraynaa inay ummadda soo hor fadhiisato oo eedeymaha loo jeedinaya ay ka garnoqdo barnaamijkan waxaa idiin soo saaray oo isku soo dubariday cabdalla mudhir oo asagoo ah barnaamijka soo saarihiisa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cabdulaahi axmed nuur oo warbixintii tv-ga universal magaalada muqdisho nooga soo diray waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac intaanu karoo kale dib ugu kulmi doonno toosh baanu wadanaa waanu iftiiminaynaa barnaamijku waa ifiyo waa mahadsantii